waxa ay sii soo taraya qayladhaan xoog leh oo ka soo baxaysa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha Galmudug kuwaasi oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka saartay liiska odayaal sax ah. qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda beesha Cabdilla Fiqi Maxamed oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay walaac xooggan ka muujiyeen isbedel ay dowladda Soomaaliya ku samaysay ugaaska beeshaasi oo lagu magacaabo ugaas Cabdiraxmaan ugaas Xaaji Xuseen. odayaasha ayaa waxay dowladda Soomaaliya ku eedeeyeen in ay dhibaato u horseedayso dhismaha maamulka Galmudug, isla markaana waxa ay odayaashaasi ku baaqeen in dowladda Soomaaliya ay arrintaasi wax ka qabato. ugaaska isbedelka lagu sameeyay ayaa waxa uu ka soo jeedaa degmada Xeraale ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. waxaan beesha caalamka u sheegaynaa oo dowladda federaalka ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka u sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo guddiga doorashadu inay wadaan dhibkii Kismaayo laga sheegayay oo ahaa in la bedelo odayaasha dhaqanka oo la keeno kuwa gacan ku samaysa oo lagu eedeynay Axmed Madoobe. wasiirka arrimaha gudaha wada ugaas Cabdiraxmaan oo ah ugaaskii beesha 135 gudoomiyahoodii saxiixii Galmudug ugaaskii kaab ahaa inay ku bedelayaan nin aan ugaas ahayn hadda ayagu keeneen. sidii ninkii horeba sheegay anagu waxaan ugaas noo Cabdiraxmaan Xaaji Xuseen aabihiis iyo awooyaashiis baan ugaasyada hore ahaan jiray. asaga muxuu ahaayay soo xulay federaalka iyo Galmudugba doorashadoodii haatan asaga u diyaar dad aan anaga nagu dal ahayn oo nagu dagaan ahayn oo nagu qayb ahayn baana dhibkaas ka dambeeyo oo wada. aabihiisa nabadoonaha awoogiisa nabadoonaha awoogiisa ugaasaha dadtaas iyo soo tixnaayeen saaka qof aan meel aan ugaasna aan ku ogeyn anana haatan ku hormaqal oo wixii warba ka hay yaa meesha loo soo tawalay ugaas weey. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nala degaan waa nin xaaladaha ka warqaba waa nin daraasi ku samayn kara inuu arko madaxweyne waxaan ka codsan xaaladda inaad aragto waxa biiska faragelinta boqor biiska dad isfeer degan baan nahay dad reer Galguduudaan ninkaas dhibko dhageystay asaga ka shaqeeyay dadkaas in cawad anagu nagu degaana ma nagu dalmaa waa reer Puntland inuu anaga faragashada waa dhibaato waa falxumo. waxay barnaamijkan u sameeyeen dadka inay isku dhiftaan weeye macnahoodu dadka inay awaana horena ayaga isugu dhiftay haddana inay isku dhiftaan bay rabaan. waxaan ka cabanaynaa nimankaasi waxa ay soo minguuriyeen iyo wixii soo gudbiyay oo dawladda oo arinta ka aqbalay waxaan la arag oo la maqal baan ka cabanaya. waxaan ka cabanaya oo u cabanaya madaxweynaha Soomaaliyeed la yiraaho Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan u cabanayaa oo cabashadaas u leeyahay waa yaqaanana waa aqaan madaxweyne labaad in dalka uu ka sameeyay oo cadeeyo oo aan dhageysano ma aanan ogeyn anagu madaxweyne saddex labaad ma aanan ogeyn madaxweynaha soo baxay oo in cawad wiilka la yiraaho oo anigu saddex jeer aan saxiixiisi ahay haddana aan ka qaaday oo san daba ku soo noqonay oo ninka aan siin lahaa mar hore saaray waxaan doonayaa saxiixa uu sameeyay ninka uu saxiixaha sameeyay marqaatigeedii waxaan haystaa yad ku dhig dadka dila inuu ahaa ugaas Cabdiraxmaan Xaaji Xuseen ugaaska beesha Cabdalle. haddaba waxgaradka iyo siyaasiyiinta waxay ka cadeynayaan inay sharci darro tahay seexayaasha cusub ayna uga cabanayaan madaxda ugu sareysa dalka ee dowladda federaalka. Maxamed Cabdullaahi Tooxow TV-ga caalamiga ah ee Universal